halkani waa raadiyo hirsamo dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xog bixiye xog dhammaystiran xaqiiqooyin dhaba intaba ka dhegeyso barnaamijka xog bixiye. barnaamijka xog bixiye waxaa lagu lafaguraa hadba arrimaha waqtigaasi taagan iyadoo faallo dheer laga bixiyo arrimahaasi markaasi la xiiseeya. haddaba arrimaha waxay isugu jira warbixinaad taabanaya arrimaha bulshada, dhanka waxbarashada, dhaqanka, diinta iyo taariikhooyin hore oo markaasi dib loo xasuusiyo dadweynaha. barnaamijkan waa barnaamij aad xiiso badan, waxaad ka dhegaysan kartaa mar kasta raadiyo hirsamo. haddaba noqo qofka koowaad ee dhegeysta xog bixiye. barnaamijkeena maanta ee xog bixiye waxaad ku maqli doontaan taariikhdii dadkii loo aqoon jiray hargaanti buureed oo aan maanta gebi ahaan ku soo qaadan doono barnaamijka. haadiyo weedhe har walbaan mawjadu hagaa hadal laga naxa maahanee hebel baa hog sameeye heblaayaa hadal ee tiri meel hebel baa hogmayso uunbay hadalkuman ka dhigteene hawraarsan miidiya halkeen ka helaaniyahu hafkiisuu birhana saaxiib miidiya lagu hirto hankaaga midaynaya hadalsan lagu yaqaan heedhe ma waadan maqlin hirsama raadiyow buugii booriniyahow hirsama waa mawjadee haatan aan ka maqlaa hirsamo mawjadeedu waa hiba tabisa hal abuur leh had iyo goor ka dheeho halka bulshada casrigan hadalkoodu dhex yaalo hirsamo tuubka la soco haddaba soo degso haltabinta barnaamijyadeeda. hagaag haadiyow iminkaba ha yeeshee haadiyow hirsamo hawraarteedu maxaa laga hantaa oo aan ka helaa hirsamaha haltabinteedu hadal ku dhibaya maaha, hog sheegtana maaha, hadal siyaasadeed haddima abuuraya, hanxumi beeraya, hoosudhac muujinaya, kuma habto bulshadeeda. hirsamo waxay u helan tahay hanuuninta shacabkeeda, ku hagidda hanka toosan, ka hayaamidda hadalka xun iyo ka helinta hagardaamada. hirka nabadda guusha hirsamo waa astaanteed. markaliyo kusoo dhawaada barnaamijkeena xog bixiye. taariikh nololeedkii dadkii loo yaqaanay hargaanti buureedka waxay ahaayeen dad la qiyaasay inay soo jireen ahaayeen, balse hal mar la waayey intii ay dhalatay dowladii siyaad barre. waxay ahaayeen rag qaraabsato ah oo aan reebi jirin wax kasta oo ay arkaan: libaaxa, shabeelka, maroodiga, geriga, dameer farowga, goodirka iyo wixii la mid ah. waxay degi jireen meelaha aadka uga fogfog magaalooyinka, islamarkaana ay ku badan yihiin ugaadha, maadha, midhaha iyo qaraabka kale ee dhirta. waxay ahaayeen dad ka koobnaa rag oo kaliya, waxayna wadan jireen qalab iskugu jira fallaadho, qaansooyin, qoryo, hub ah, tuuriyo, weelal iyo wixii la mida. gaadiid ahaan waxay adeegsan jireen awrta iyo dameeraha. waa nimanka soo saaray sharciyada ciqaabta ee loo yaqaanay yakaha, iyo kuwa waa qaab loo ciqaabo qofkii ku xadgudba ama ku dhaqmi waaya xeerka meesha ka jira. waa ciqaab isugu jirta ganaax iyo ciqaab shaqsiga qaldamay la wada marsiinayo. waxaa kale oo ay lahaayeen xeerar adag oo aan ina soo gaalaa iyo hadda ay carruurta ku ciyaaraan, sida xabaalmooleyda oo ay iyagu isku ciqaabi jireen, balse qarniyadan dambe ay carruurtu ciyaar ahaan u adeegsadaan. laakiinse waxaa dabar go'ay xeerar aad u adkaa oo ay ka mid ahaayeen qofka xeerkooda ku qaldama oo la qaawin jiray, banaankana lagu xiri jiray. waa rag kaliya cidda xeerkan la marinayo, maxaa yeelay dumarku lama aysan shaqaysan jirin hargaantida. waxaa kale oo weli sii jira dadkana lagu ciqaabaa qofka oo geed quraanjo badan lagu xidho kadibna quraanjada lagu cariyo. xeerkaas oo nimankaasi laga soo gaadhay waa nimankii isku dhaarin jiray ballanqabow buudyaha ka jab, taas oo ilaa iyo hadda la isku dhaariyo. badanaana qofkii ballan muhiima ka baxaa inta badan la arko inuu lafdheerta bowdada ama meel u dhiganta ka jabo. waana sababta ay weli dadka reer miyiga ah ugu mahmaahdaan bowd jabtay ballan bay og tahay.
waa nimanka ku shaqaysan jiray waxyaabaha cilmi falaga loo yaqaano sida faalka, saadaasha, xidigiska iyo wixii la mid ah. waa sababta ay Soomaalidii hore ugu maamaahi jirtay nin hargaanti buureed arkay dambaab. waxay ahaayeen niman ciidan ahaan u kala qaybsanaan jiray 4 nooc, maalin kastana howlgeli jiray. halgan waa ciidanka tugto waxay ka soo horbaxaanba libaaxa, maroodiga, geriga, goodirka iyo wixii la mid ah. mariidley waa ciidanka fallaadhaha sifeeya ama xabadaha la riday soo ururiya kadibna dib macmal ugu sameeya. saadley waa ciidan magaalooyinka ama reeraha loo dhisan jiray si ay sahayda u soo qaadaan. tumaal waa ciidan fadhihi jiray oo samayn jiray biraha wax lagu qasho sida toorida, midida, godinta iyo wixii la mid ah. reediyow hirsamo raadi. hadalkeedana deeqaay hirkii nabadeedoo haatan hawadeedu qalbiga naga habaysaay. hirsamoy maadiga ilahaasabow hirsama haddaan ahay hodan waxaan ku hayay horumar iyo hamisami iyo sidaan ku hergeli lahaa hadalkaygii hibadii howd inaan mariyo hawa Soomaaliyeedoo dhan heedhalayga dhegaysto hirsamo ku horto hoobalayda liyahayo ayuu hadafkaygu yahay. ilahaasabow hirsama haddaan ahay haatan soo ima helin. hey hirsamo kulahaasawaye tolow halkaan kaa heebiyaa misna aan kaa hela iga hel haatan haatufkaaga dhexdii halka bulshada casrigan heedhe youtube-kayga hoo. waa tahay haddaannu halkaa kaga tallaabno taariikh nololeedkii dadkii loo yaqiinay hargaanti buureedka oo aan maanta ku soo qaadanay barnaamijkeenna xogbixiye idaacadda hirsamo. markanna waxaa idinku soo maqan mid ka mida kaalimaha suugaanta aadka loo xiiseeyo. dhegaysa. dagal barwaaqa oo dayriya jiilal dogu barka simeeyahay daruur caafimaade dookhaygi baatahay sida dagal barwaaqa oo dayriya jiilal dogu barka simeeyahay daruur caafimaade dookhaygi baatahay sida looga dafuro dariiqani geesiya ama looga deeqaa dad baka ka darto doorkii baa tahay ragba doorkii aa tahay sida looga dafuro dariiqani geesiya ama looga deeqaa dad baka ka darto doorkii aa tahay ragba doorkii aa tahay dugsi dhaxanta celiyo dawadii naftayda إلى الدوج عاشقا دكسي دحنت عليو دودي نبتيدا إلى الدوج عاشقا إلى الدوج عاشقا
كائرا أفتكى مدركتو كما تنكرايا تويغو كائرا دم تقول الدنيا الحمارين نونو درجنا حنالي جعل كان هضربين إنو عرب دهجيو الله إنو عرب دهجيو دلت جودة يدا إبهامنا نونول تركنا حنالي شاركنا تربين إنو عرب دهجيو aan halkaa uga tallaabno codadkii nimcaan hilaac iyo idil barqad ayay ahaayeen waxaynu ugu dambeysay barnaamijkeenna xog bixiye oo maanta aad ka dhegaysanayseen idaacaddeenna xirsamo intaynu dib kulmi doonno barnaamijkan kiisa xig waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo